gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ka mid yahay gobolka ugu wax soo saarka badan dalka marka laga hadlayo dhanka beeraha. waxaan dhawaan howlo shaqo u tagay deegaanka Jiida Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana xudun u ah beeraha uu gobolka Shabeellaha Hoose oo caan ku yahay. gobolka Shabeellaha Hoose waxaa maray webiga ugu dheer ee Soomaaliya oo ah webiga Shabeelle. halkan waa buundada laga galo magaalada Janaale ee isla gobolka Shabeellaha Hoose waxaana ku yaala biyo xireenka ugu weyn ee gobolka kaas oo hadda ka muuqdo burbur aad u baahsan isla markaana u baahan dayactir xoogan. beeraha ku yaala Jiida Janaale waxaa lagu beeraa noocyada kala duwan ee qudaarta waxaana hadda ka socda ka faa'iideysiga dalagyada ka soo go'a beerahaasi. qudaarta ka soo go'da beeraha ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanka Jiida Janaale ayaa waxaa loo qaadaa gobolada kale dalka halka tiro aad u badan oo dalagyadaasina loo dhoofiyo dalka dibadiisa gaar ahaan mooska. shirkadda Fruitsome waxaa ku midaysan beeraley Soomaaliyeed waxaana ay dhoofisaa mooska kaas oo lagu beero ama ka soo go'a beeraha ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose guud ahaan gaar ahaan deegaanada Jiida Janaale waxaana ay dhowr harumood oo lagu diyaariyo mooska la dhoofinayo ay ku leeyihiin. Xuseen Cismaan Waasuge waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta sare ee shirkadda Fruitsome. isaga ayaana kula hadlay goob ay shirkadooda ku diyaariso mooska dalka dibadiisa loo iibgeeyo. Fruitsome waxaan bilownay 2 sano ka hor waxaan ku bilownay 1 container iyo 2 container maanta waxaan maroynaa ilaa iyo 30,000 oo kartoon wax u dhadhow. shaqada waa shaqo u baahan dawlad oo mataqaanaa beeraley ama shakhsiyaad aysan fuli karin. waxaan wax ku wadnaa si xoogan mooska Soomaaliya maanta waxa lagu cunayaa Iiraan iyo Imaaraadka iyo wadamada Khaliijka. waxaa isku xilqaamay beeraleyda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan beeraleyda Janaale iyo mataqaanaa meesha la yiraahdo Golweyn. waxaa naga caawiyay ciidamada militariga gaar ahaan Axmed Absuge oo maamula mataqaanaa qolooyinkan Janaale guutada Janaale joogta iyo Tuuriyar in la yiraahdo asna wadada naga caawiya inkastoo generaaladu ay wax ka og yihiin. waxaad sheegtay in markii hore 1 container aad ku bilowdeen oo maantana 30,000 maalintii miyaa inta soo saarkaas maya waa 20 maalmood mar ayuu markab ku yimaadaa. waxaan rajaynaynaa insha Allah markab jaartaro oo ama beeraleyda ama Fruitsome yeeshaan mustaqbalka. laakiin hadda waxaan ku shaqeynaa maraakiibta konteenarada wada ayaan saaranaa river konteenarada la yiraahdo qaboojiyaha ah ayaga ayaa mataqaanaa sitay ayaga oo marba meel la sii istaaga culayska logistic uu nahaastaa. gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ka mid ahaa goobaha ama gobolada maleeshiyaadka al-shabaab ay ku dhibaateynayeen shacabka ku nool halkaasi waxaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa midowga Afrika AMISOM ay ka saareen guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi. taliyaha ururka koowaad ee guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ka howlgala deegaanada hoos yimaada degmada Qoryooley iyo magaalada Janaale Gaashaanle Axmed Absuge Cabdulle ayaa iiga waramay sida ay ammaanka deegaanadani u xaqiijiyaan. deegaankan Janaale waxaa hoos yimaada 99 tuulo 99 tuulo dhammaan waxay ku jiraan gacanta dawladda Soomaaliyeed. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka howlgala khaasatan ururkan koowaad ka howlgala. hadda waxaa howlgal ka socda howlgaladaas si xawli ah u socdaan jawi fiican ay ku socdaan. ilaahay hadduu qadiro waxyaabo badan oo mar dhow aan filayno iyo dad badan oo nabadiidka oo inay soo dhiibaan aan filayno waa jiraan. gobolka Shabeellaha Hoose ayaa caan ku yahay markaan waxa uu yahay gobol wax soo saarka caanka ku ah. haatan waxaan ku sugnahay beeraha ku yaala hareeraha tuulada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana guud ahaanba haatan deegaanada beerahan ay yihiin beero xilligan ka soo saarka kala duwan. adinka sida u jeedaan daawadayaal waxaa halkan gadaashay ka muuqda dalagyada kala duwan ee ugu horeeyo mooska iyo waliba dalagyada kale ee caanka ku yahay gobolka Shabeellaha Hoose. Xuseen Cismaan Waasuge ayaa sidoo kale waxa uu madaxda sare ee dawladda Soomaaliya ka codsaday inay dhiirigeliyaan ganacsatada Soomaaliyeed doonaya inay ka faa'iideeyaan dalagga kala duwan ee ka soo go'a beeraha guud ahaan dalka. waxaa kaloon meeshaan uga faa'iideysanaa insha Allah ta'ala qodobka beeraleyda ama moosku waa arrin madaxtooyada ama dawladda Soomaaliyeed looga baahan yahay inay wax ka qabato ay caawiso beeraleyda yacni loo sameeyo training iyo mataqaanaa dhiirigelin. qolo Turkiya ayaa dekada laga kireeyay ama lagu wareejiyay
waxay nagu yiraahdeen moosna ma naqaano shaqana kuma lihin waxaan u baahannahay in yacni nidaamkii konteenarka daraayiga uu mari jiray aad martaan annagana waxaa nagu ku qasbanaanay shirkaddii mas-uulka ka ahayd mooska ee qaadaysay markay geyso lagula xisaabtamayey inay mooskii la wareegto culeyskaasaana haysta kolley dowladdan kala hadli doonaa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo mataqaan wasiirka beeraha iyo aan kala hadli doonaa laakiin waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa ciidamada jooga Janaale